بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan kusoo gudbinayaa saddex fariimood waxa weeye kow mid waxa weeye waxaan kula uga jawaabayaa Muuse Fircoon Muuse Shaydaan Muuse Argagixiye Muuse Dhigyacab fariimo magaranaysa hadalkiisii ayaan uga jawaabayaa midna waxaan leeyahay dhaqanka iyo culimada waxa weeye gobolada waqooyi gaar ahaan beesha dhexe ama beesha reer Isxaaq culimadooda iyo dhaqankooda midna waxa weeye fariinta saddexaadna waxaan u dirayaa kacdoonka shacabka buluuga ah ee SSC haddaan ka horeeyo Muuse Saamiri Muuse walaalayaal waxa uu ku sheegay in kacdoonka shacabka ee maxaa ku raadada ka jira kacdoonka buluuga aynu bixinay inay ka dambeeyaan argagixiso wuxuu ku sheegay waxa weeye wax garadkii iyo dhaqankii ayuu argagixiso ku sheegay aqoon-yahankii buu argagixiso ku sheegay wax garadkii buu wax argagixiso ku sheegay haddaba su'aasha meesha taala waxa weeye Muuse ma isaga argagixisa mise shacabka masaakiinta ah ee xuquuqdoodii iyo xornimo doonka ay argagixisa waxaanu ku bilaabaynaa Muuse horta muxuu ku noqday waxa weeye maxaa ku raab jagadan uu joogo muxuu ku yimi Muuse wuxuu ku yimi waa dhiig buu ku yimi dawladii Soomaaliyeed iyo ummadii Soomaaliyeed ee haysatay waxa weeye intuu ka baxay oo duurka galay oo cadow ummadda Soomaaliyeed u tagay ayuu deegaankiisii iyo dadkiisii wuxuu ku soo hogaamiyay cadow wuxuuna ku shiday dab wuxuuna barakiciyay dadkii shacabka ahaa wuxuuna dhiigooda daadiyay dad waxa weeye aan la cid la xisaab aan cidina xisaabi karin horta Muuse waxa weeye waa argagixiye ummad Soomaaliyeed oo nabada oo degan ayuu qayb ka ahaa in ummadda Soomaaliyeed la argagax geliyo oo dad badan oo kamid oo boqolaal kun ama malaayiin ah laga barakiciyo guryahoodii oo ay shisheeye isu dhiibaan oo qaarkood ay gaaloobaan oo qaarkood ay waxa weeye dayacii darxumo ay maxaa ku leedahay daafaca caalamka ugu dhintaan taa ayaa lagu darajo siiyay waxa la yiri waa mujaahid baa loo bixiyay mujaahid ayaa loo bixiyay waa mujaahid shaydaan wey mujaahid ninkii dhiiga muslimiinta daadinayay ninkii ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda burburiyay ninkii qarankii ummadda dadka Soomaaliyeed dawladnimadii Soomaaliyeed waxa weeye duulaanka ku soo qaaday ayaa waxa loo talay darajo waxa weeye mujaahid subhanallah waxa weeye marka waa dhigica waa shaydaan weeye marka waxa weeye wuxuuna shaydaan ku sheegayay shadaadiin uu ku sheegayay waxa weeye dadka shacabka marka shaydaanku laba maahe isaga ayaa shaydaan baynu leenahay haddaan soo noqono oo aynu ka soo noqono xilligii magaranaysa intii dambe ee waxa weeye ay dhisantay maamulkan la yiraahdo Somaliland waxa inta dadka lagu hayay cagajugleyn iyo qasab iyo jujub waliba khaasatan gobolada tan waxa weeye maxaa ku raadada SSC waxaan rabnaa bal hadda inaynu qeexno oo cadeyno marka ugu horeysa waxa weeye dadka uu qaran yahay maanta qirtay waxa weeye waa 40 buu qirtay isagu laakiin dadku 140 way 140 kaas 30 waxa weeye ka magaranaysa dhowr iyo 15 sano la leeynayay waxa weeye waxa lagu leeynayay system baa lagu leeynayay sababtu tahay al-shabaab hadday aanu raahno al-shabaab waxa hogaaminayay niman reer waqooyi baa hogaaminayay waxana loo sameeyay al-shabaab oo dad badani ay aaminsan yihiin in loo sameeyay in lagu dhabar jabiyo koonfur si aan koonfur dawladda uga dhismin si ay inta ay isku mashquulsan tahay muqdisho ay qasan tahay koonfur isku mashquulsan tahay ay waxa weeye colaadu ay dabka looga ay uga shidayaan si ay u helaan aqoonsiga ugu yeedhaan marka al-shabaab waxa ku jiray weelal magaranaysa ay iyo laga shaqaaleeyay oo sirdoona ah oo dadka waxa weeye loogu talagalay dadka Soomaaliyeed ee sharafta badan leh in dhiigooda markale lagu banaysto si loo dhibaateeyo midnimada iyo dawladnimada ummadan sharafta badan leh marka waxa la amrayay oo awaamirta siinaysay oo dhashay oo abuurtay waa asana bay ahayn amna hogaamiyayaasheeda iyo magaranaysa maxaa ku madaxdeeda isaga kamid ah 15 sano
waxa magaalada laascaanood xasuuq gaar uga dhigay waa ujeeddada aan ku idiin sheegaya ee xamar ka jirta ee xamarna loo bartilmaameedsanaya wey dadkan waxgaradkooda waana maxaa ku dhahday indhahooda in la laayo waana fishankii iyo aragtidii fircoon wey fircoon arrintii uu ka lahaa waxa weye dadkii maxaa ku dhahday shacabkii reer bani israa'iil ee masar ku noolaa taariikhda waad haysaan in uu waxa weye maxaa ku dhahday wiilasha uu layn jiray sanadna uu layn jiray sanadna u deysan jiray si ay u xamaalaan systemka dadka loo laynayo ama loo laayay boqolaalka gaadhaya waa qorshahaas weeye waxaa go-aan lagu gaadhay oo ay snm go-aan ku gaadhay dadkan in ay maxaa ku dhahday layso indhahooda iyo dhegahooda iyo cuquushooda laba qaab bayna u dilaysaa kow inay qaar badan oo ka mida cabsi geliso oo ay khasab ay waxa weye maxaa ku dhaha cabsidaa ay baqaan oo si ay waxa weeye u bahdilmaan qaarka soo hadhayna in laga takhaluso oo meesha laga saaro si nif qof firfircoon oo damiir leh oo waxa weeye dadkan waxa weeye rabitaankooda ku hadli karaa aan u jirin marka horta dadkan iyo al-shabaabka ka jira xamarba snm baa dhashay ha la ogaado ummadda soomaaliyeed muusana dhalay lambar 1ka ninka koowaad ee argagixisada ahayna waa isaga shaydaankuna waa isaga oo waxa uu shaydaan u yahay wuxuu hayaa fishankii iyo aragtidii fircoon buu haystaa anaa rabbukum alaclaa buu leeyahy waayo waxa hadda aad kala la socotaan goob meesha la yidhaahdo magaranaysa maxaa ku dhaha hargeysa waxa uu ka sameeyey iyo xisbiyadii mucaaradka sida ula dhaqmay wa anaa rabbukum alaclaa wey aniga ayaa idin rabbigiin oo idinka sarreeya idinku waxba ma jedin xaq umada lihidin inaad doorashada qaadataan in laydin doorto inaad ila tartantaan xaq uma lihidin taa ayuu kula dagaalamay taa ayuu iyagana ku laayay taa ayuu ku xasuuqay taa ayuu magaranaysaa xisbiyadoodii uu rabay inuu ku kansal gareeyo laakiin ilaahay subxaanahu watacaala awoodihiisu way badan yihiine meel kaleu wax ka soo saaray goortii ay magaranaysaa reer magaranaysaa maxaa kula xisbiyadii waxa weeye maxaa ku raday uxud iyo wadani goortuu ka adkaaday bal hadda u fiirso ayaa ilaahay meel kale ka qarxiyey waxa weye nasri ka soo dira laakiin ma garanayaan baan isleeyahay tolow ma garanayaan nimankaas oo ma u hiilin doonaan waxa weye kuwa u hiiliyey ee fursadda magaranaysaa siiyey fursaddana ma ka faa'iidaysan doonaan dadka waxa weye maxaa ku dhaha halgamayaasha ah ee fursadda dahabigaa siiyeyna ee aanay heleenna tolow ma fahmayaan waxaan leenahay walaalayaal muuse hadduu ehlu naar jiro waxa weeye isaga ayaa ehlu naar sababtay dhaqanka uu ku dhaqmayo markiisa kiisii horena uu ugu soo dhaqmay oo ummadda soomaaliyeed ku xasuuqay haddana uu dadka masaakiinta ee ebriyaada uu ku xasuuqay ee ugu magaranaysa maxaa ku dhaha 15 sano loogu xasuuqayay laascaanood ee hargeysa loogu laayay ee burco loogu laayay ee ceerigaabo loogu laayay walaalayaal waa dhaqan shaydaan wey dhaqan shaydaan waa dhaqan insi maaha dhaqan islaamna maaha ilaahayna subxaana watacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay kusoo gebagabeynayaa aayad qur-aan oo le odhanaysa wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaahi wa bilyowmi alaakhiri wamaa hum bimuminiin yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu wamaa yakhdcuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun fii quluubihim maradun fasaadahum allahu marada walahum cadaabun aliimun bima kaanuu yakdibuun bal hadda aayaddaa iyo muuse saamiri iyo dadka maxaa ku dhaha la falka ah ee raba inay ummaddan islaamka ah ee sharafta badan ee ilaahay subxaana watacaala uu doortay inay kala qaybiyaan oo kala qoqobaan oo gooyaan oo cadow shisheeye ah oo gumayso ah waxa weeye oo xoog ku qabsaday ay u addoomiyaan oo ay leeyihiin waxa weeye xuduuduu noo sameeyey iyagoo islaam oo ilaahay uu ka dhigay kunta khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'maruuna bilmacruufi wa tanhawna waan u soo noqon doonaaye ayaa bal hadda isu eega arrimahaas bal hadda arrimaha isu eega الله سبحانه وتعالى محولي منافقين إن منافقين في درف ماشى وجوه سيسا نارتا أي منافقين تكجليا شيطان كيجا كوسيا قال هذا إيجا كوسيا مركا نيكلا يرى موسى سامري وحوي والله بشار له شار بينو قشين يهاي شار مسلم بينو قشين يهاي مقع مسلم بيستا لكن وحوي محاكل هذا دقن كيسو ودقن منافقوي
dhaqankiisu waa dhaqan fircoon weeye dhaqankiisu waa dhaqan shaydaan weye intaan waxaan kaga baxayaa muuse waxaan leeyahay odayada guurtida ah iyo culimada ma garanaysaa beesha dhexe ee somalilan waxaan leeyahay walaalayaal waxa weeye waa runtii waxaan aad iyo aad uga xumahay dhaqan iyo culimaba waxa aad ma garanaysaa maxaa ku dhaca xaaladda jirta iyo sida aad uga aamusantihiin oo aanidan mowqif shariif ah oo midaysan aad uga qaadan laadihin marka ugu horeysa waxaan ka hadlayaa ummaddan islaamka ah ee ilaahay mideeyey ee aayaddii aan soo sheegay ee oranaysay maxaa ku dhahdaa ilaahay wuxuu idinka dhigay waxa weeye maxaa ku dhaha kunta khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar wa tu'minuuna billah ummad caalamka soo martay ummaddii ugu khayr ka badnayd maxay ku noqdeen waxa weeye maxaa ku dhaha waxay reebayaan xumaanta wanaagayna farayaan walaalayaal ummad islaam oo la kala qaybiyaa xaggay diinta kaga jirtaa culimadaan weydiinayaa dhaqanka waxgaradka ayaan weydiinayaa ummad islaama oo la kala qaybiyo oo loo kala xidhxidho xuduud uu cadow shisheeya oo gaalaha intuu kusoo duulay uu u sameeyey in ummad islaam ah waxa weeye lagu kala qaybiyo oo ma garanaysa maxaa ku dhahday la daawado maxay diinta islaamka ka qabtaa anigu waxay la tahay arrintaasi waa arrin runtii khatar weyn leh waa arrin culimada xujo ku ah waa arrin dhaqanka wanaagsan xujo ku ah waxaynu awoodnaa oo amiyaynu weyne caqli aynu ku hagaajino ummadda soomaaliyeed inta aynu isku hagaajino reer waqooyi haddaynu ummadda wax dhaano waxba uma dhaano 30 sano ayaynu aragnay inayna waxba dhaamine oo aynu riwaayad dhignay waxa weeye oo aad riwaayad dhigteen reerka beesha dhaxay waxa weeye haddii aad wax ku dhaantaan waxa weeye maxaa ku dhahdaa koonfur oo aad leediin waxba nalooma ogola intaad wax isu ogolaataan idinku maad intaad wax isu ogolaataan aad tiraan warbal aan doonno walaalaheenii maxaa ku dhahdaa inuu lumay wala dowrso oo aan gacanta qabano oo aan magarasa kor soo qaadno maynu dhaano ma tiraadaan haddaa wax dhaantaan waxaan leeyahay dib isu eega dhaqanow dhaqanka beesha dhexe ama beesha reer isxaaqow dib isu eega waxa weeye waxa wanaag ah way muuqdaan laakiin heerkii la rabay ma gaadhsiisna culimada sharafta badan leh ee runtii aan qaarkood aan jeclahay dhammaantoodna inta maxaa ku dhaha rabbaaniyiinta aan jeclahay waxaan leeyahay culimo waxa weeye runtii aamusku waa calaamatu ridaa weeye idinkaa dadka u sheega idinkaana baray aamusku inuu calaamatu ridaa yahay muuse dulmiga iyo goodiga iyo gardarada uu ku jiro uu samaynayo ma raalli baad ka tihiin macnaha aamuskiinu wuxuu qeexayaa inaad raalli ka tihiin waay wiilashiinu dad ebriya ah oo aan doonayn oo waxa weeye maxaa kule maxay ugu dul joogaan maxay ugu dul dhimanayaan maxay u xasuuqayaan maxaad wax uga odhan weyda walaalayaal miyaanadaan ilaahay ka baqayn miyaanadaan dhimanayn miyaan godkii yaraa layna dhigayn miyaanan ilaahay is hortaageen culimooy waxaan leeyahay war cad baa laydinka rabaa war cad ayaa culimada iyo dhaqanka wanaagsan ee beesha dhexe laga doonaya waqtigii waa tegi soomaali 30 sano aynu tijaabinay soomaali 32 sanana waa tijaabsantihiin meel laydin raacaa ma jirto meel laydin raaci karo soomaali oo laydin raaci karo iyo isku hadlayn la isku keen hadlayn karaa dambe ma jirto bala doofiso waxaad leeyahay caqli keena oo dib isu eega oo maxaa ku dhahday war degdeg ayaa laydinka doonaya waxaan ku soo gabagabeynayaa fariin aan u dirayo kacdoonka buluuga ah ama kacdoonka shacabka ee SSC waxaan leeyahay baarak allahu fiik wa jasaakumullahu khayr waxaan xusuusinayaa inaan maalintii la dilay Hadraawi Sangub aan soo galay halka ma garanaysaa live soo galay oo aan aad idinku dhiirigeliyay inaad kacdaan oo kacdoonku uu si fiican u bilowday runtii wax kacdoon uu jiri jiray oo gabdhaha iyo maxaa ku dhahday caruurtu way mudaharaadi jireen khayr allaha siiyo laakiin heerkan ma gaadhsiisnayn fadlillaah maalintaas waxa weeye waxaa dhacday in magaalada laascaanood daafaheeda ay soo baxaan dhawaaq iyo farrimo kale ayaynu dirnay waxaanu nihi degmooyinka iyo tuulooyinka waa inuu gaadhaa dibadbaxo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin degmo kasta iyo maxaa ku dhahday deegaan kasta wuu gaadhay waxaad maanta haysataan guusha iyo neecawdaada haysataan waxa weeye ciidan ma keenin waxa idiin keenay waxa weeye kacdoonkaas shacabka weeye muusena waxa aad ku disheen waxa weeye maxaa ku dhahday waa kacdoonkaas weeye
ملايين الله له وحو كان واحد كبر برونيسان وكعدون كشعب كوي وحندين شيء كعدون كصعد كعدونكو هالصعد وحوي عيدا كان متشوي كران واحد كله دجال الله ميسان دجال أنا أقون دجال أنا أفريقيا كو أقون دجال أنا أسنا أقونين أياد كله دجال الله ميسان بلا دوفرس دجال كاسو ودجال كعدون كوي وحلاقي كعدونكو هالصعد وحاو شيء يا موسى ونفل عاري من موسى ونفل عاري قد كيسابي وقال كرسينا وخلاص ويه ودعيا إنه دنتو ديكون فرتنا قركو أساريه ولا توفرسه وحوي يقول طبعا الله هاي وهنلاقي هاي إن شاء الله بإذن الله الكريم دفاعنا قلع وحبوا ويرر هالجيليننا أنا وحوي دجال جيل شراها وحوي محاكل هذا مهمة ده نكان واضركتان هدي أنا هيلين وحوي نوالن ولا كيسا أمير غبا ليري هدي أنا دمي ولا لها عن فرينتا أدري هدي أنا محاكل هذا نكان قبن بلا دوفرسو وحدونا يا دجال دبر دير هذا بدونيا لكن دجالك وحكادك وكعدك شعب كوي فريمها الضمبة إن شاء الله أيام نكسو قلبين دونا لكن وحنا نكدونا يا كعدونك الشعب كوي نصعده دقمة والبا يتولى والبنا وكصعده وحن كلا أباقيا وأن كعدونك أباقيا دمان قبل هذا يمحكوا الدقموين كدلك إن لا تاجروا كعدونك وهي ضدك الصومالية ويود الدلمين ضدك الصومالية ويود الدلمين قبل والبا واحد شوقة كوحية ديجي عباه وديجي ضدك عباه أو حوي محاكلة الدولة وح الله وحي ضدك أقب تعاني شرين مركا ضدك الصومالية دلك وحوي هدان إلى ضدك الصومالية دلك ودو خطر بكشرة خطر وحي نكبت بعد كرا ولا ليال إنا بناك وصابحنا وحن مركا إنك قعد سنة قبل والبا خير السي 10 بيدقان 10 كان إن شاء الله وحوي وحنوبهن إنك هو فايدة السنة ومدة الصومالية إن لوجا فايدة بالربع شعب كا وحندين شيء يقولون كسر جبين يا دما شعب الصومالية شعب الصومالية ودل كان أديك عليه نك مسؤول كأ ما ملاها أما مدحوينها شاكته أما دخن هالشاكته وحوي واشقالة أديك أيوكو شقيا وأي أديك أيوكو مثل عذاب مقعوضي هدي أنا كو شقين كرين وشغفي عن كو قمن كرين وأين شقك قبطه وأين أتكلم نقطه وحوي مثلاد وكو مثلي وين أتكلم نقطه marka waxaan rabaa meel walba iyo gobol walba iyo degmo walba inaad ka muujisaan dareenkiina oo banaanka u soo baxdaan oo aad tiraahdaan waanu diidnay dulmi diid baynu wadanahay dhamaanteen waxaynu u baahanahay dalkeena inaan ku xoreyno mudahiro gaaban aynuna ku xoreyno iyadoo aan barniigii inaga daadan dhiig iyadoo aan inaga qaban civil war waxaan ka digaynaa dagaal maxaa kula qabyaaladeed ayaan ka digayaa oo daba dheeraada oo ujeedooyinka cadowgu uu ka faa'iideysto dagaal daba dheeraada oo cadowgu ka faa'iideysto ayaan idinka digayaa ummadda Soomaaliyeed sidaa darteed waxaan idin leeyahay dagaalka dhabta ah duufaanta dhabta ah waxa weeye aan cidina celin karin waa kacdoonka wada walaalayaal allana ha idin guuleeyo waa guuleysanayna guushii maanta waxa haya shacabka reer SSC ba haya way siday u shirayaan sharafta ka muuqata karaamada ka muuqata يعني سنبايتيها يبغادينتا يمحاكل تاجرة أي أدونك يكيل يا شعب صوماليات با لعدد الحساب مركا قول وحوي دمستر وحيرو باكهاري إذا ماذا سنة دعوان كودي يكون نقدر مالها دور كشوجة وحوي مالها كوتشر مجرن سمحاكل بنانا لا مرمريا إنت أصلا باكهاري مقالوا يكوا وضع حر مركا وحن لنا يدك الصوماليات قبل كستا يدق كستا تشوكتو وحن أوبهنا الشعب كها حروب هركا كعفر وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.